heshiiskan isaga ah ee lagu kala saxiixday magaalada Islamabad ee dalka Pakistan ayaa waxa uu ka dambeeyay horay iyadoo u wada kulmeen saraakiil ka kala socotay labada dhinac Soomaaliya iyo Pakistan waxaana uu la xiriiray mashruucan ku saabsan arinta ID-ga ama aqoonsiga marka la fiiriyo dalka Soomaaliya iyo waliba mashruucan oo wax weyn ka taraya iyadoo lagu shaqeynayo tiknoolajiyada cusub ee maanta dunidu ay adeegsato. heshiiskan saxiixiisii waxa uu ka dhacay xarunta xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Abazi waxaana uu ahaa ra'iisul wasaaruhu mid goobjoog ah markii labada dhinac Soomaaliya iyo waliba Pakistan ay heshiiska kala saxiixdeen. dhinaca Soomaaliya heshiiska waxa uu saxiixay wasiiru dawlaha arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Faarax Weheliye. dhinaca Pakistanna waxa uu saxiixay wasiirka dhinaca maaliyadda Miftaax Ismaaciil iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil ay kamid ahaayeen safiirka Soomaaliya u fadhisa magaalada Islamabad ee dalka Pakistan Danjire Khadija Maxamed Al Makhzumi iyo waliba madaxa mashruucan iminka ay maalgelinayso dowladda wadankaasi Pakistan oo ah Dr. Adan Diriye Xirsi. marka la fiiriyo mashruucan isaga ah waxa uu yahay mid wax weyn ka taraya qaybta aqoonsiga diiwaangelinta iyo waliba marka la fiiriyo dhinaca dhalashooyinka. waxa kale oo wax ka taraya mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya markay gaarto qof iyo cod iyadoo dhinaca kalena qalabkan iyo mashruucan uu yahay mid lagu la socon karo dhaqdhaqaaqa guud ahaanba marka la fiiriyo dhinaca xuduudaha ee dalka Soomaaliya. haddaba heshiiskaasi markii la kala saxiixday waxaa hadashay danjiraha dalka Soomaaliya u fadhisa ee wadankaasi Pakistan gaar ahaan magaalada Islamabad Danjire Khadija Maxamed Al Makhzumi. waxay ka warantay faa'iidada ballaaran ee heshiiskani u leeyahay dalka Soomaaliya iyo mashruucani kaalinta uu ka geli doono arrimaha horumarinta Soomaaliya. waxay sheegtay Danjire Khadija Maxamed Al Makhzumi in arrinkan bilowgiisii culays xoog leh uu saaray madaxweynaha dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo aad ugu dadaalay in mashruucani uu meel maro. waxay sheegtay Danjire Khadija Maxamed Al Makhzumi in mashruucan ay ku baxayso lacag dhan 10 milyan iyo 300 oo kun oo dollar taasoo ah mid dowladda Pakistan ay ugu tala gashay dalka Soomaaliya inay ka caawiso. haddaba ugu dambaystii Danjire Khadija waxa ay sheegtay in ay u mahad celinayso dowladda Pakistan ee dadaalka xoogga leh iyo garab istaaga ay garab taagan tahay dalka Soomaaliya iyadoo dhinaca kalena rajaysay mashruucani inuu noqdo mid u faa'iideeya guud ahaanba bulshooyinka Soomaaliyeed. waa Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige wararka telefishinka caalamiga ee Universal London.